ku soo dhawaada barnaamijka maanta. Waxaan ka hadli doonaa dalka Sweden, dal cajiib ah oo leh taariikh qani ah, dhaqan hodan ah, jasiirado la yaab leh iyo nidaam dimuqraadi oo hufan. Waxaanu si qoto dheer u eegi doonaa Sweden, laga bilaabo goobta juqraafi ahaan ay ku taalo, heerka dhaqaalaha, waxbarashada, caafimaadka iyo shirkadaha caanka ee uu dalkaasi leeyahay. Sweden waxay ku taallaa waqooyiga Yurub, waxaana qayb ka tahay jasiiradda Scandinavian-ka. Sweden waxay xuduud dhulka la leedahay laba dal oo kala ah, Norway oo dhanka galbeed ka xigta iyo Finland oo dhanka waqooyi bari ka xigta. Sidoo kale Sweden waxaa ka xiga dhanka koonfureed iyo xagga bari badda Baltica. Cabirka dhulka Sweden waxaa lagu qiyaasaa 450,295 kilomitir oo laba jibaar. Waxay ka mid tahay dalalka ugu ballaaran Yurub, iyadoo kaalinta shanaad kaga jirta marka la eego cabirka dhulka. Sweden waxay leedahay buuro, harooyin iyo keymo waaweyn oo cajiib ah. Dhulkeeda dabiiciga ah wuxuu caan ku yahay dhirta kala duwan, xayawaanada iyo dhul cajiib ah oo qurux badan. Taariikhda Sweden waxay leedahay isbeddello ballaaran iyo waayo-aragnimo qoto dheer. Dalkani wuxuu soo maray xaalado kala duwan, laga soo bilaabo boqortooyinkii qadiimiga ahaa ilaa xilliyadii dagaaladii iyo isbedelada siyaasadeed dunida ka dhaceen. Aynu soo noqono taariikhda Sweden oo aan si qoto dheer u eegi doono waayihii muhiimka ah. Taariikhda Sweden waxay ka soo bilaabmatay waqtiyadii Vikingiska, kuwaasoo caan ku ahaa ganacsiga iyo dagaalada. Tan iyo qarnigii 16aad, Sweden waxay noqotay boqortooyo xoog badan, laakiin waxay gashay dagaallo qadhaadh oo keenay dhulal badan oo muhiim ah lagala wareego. Sweden waxay kaalin dhexdhexaadnimo ka qaadatay dagaalkii koowaad iyo dagaalkii labaad ee adduunka, waxaana door weyn ka ciyaartay arrimaha caalamiga ah iyo nabadeynta Yurub. Tirada dadka Sweden waxay gaadhaysaa ku dhowaad 10,500,000 oo qof. Waxaa ku nool magaalada caasimadda ee Stockholm 2,400,000 oo qof. Caasimadda oo ah halka ugu badan dadka reer Sweden ku nool yihiin. Bulshada Sweden waxay ka kooban tahay dadka asalka ah iyo muhaajiriin ka kala yimi adduunka oo dhan. Qaybta ugu weyn ee bulshada ayaa ah dadka dhalinyarada ah, taasoo muujinaysa rajooyinka mustaqbalka ee uu dalkanu leeyahay. Dhaqaalaha Sweden waa mid ka mid ah kuwa ugu xooggan Yurub, iyadoo ku tiirsan warshadaha culus iyo tiknoolajiyadda. GDP-ga dalka waxaa lagu qiyaasaa 600 bilyan. Qiimeynta horumarinta aadamaha ee loo yaqaano Human Development Index, Sweden waxay ku jirtaa kaalinta 7aad, taasoo muujinaysa inay Sweden ka mid tahay dalal kale nolosha tayada sare leh. Shirkadaha caanka ah sida Volvo, IKEA iyo Ericsson ayaa ka dhigay Sweden xarun ganacsi oo caalami ah. Dakhliga soo gala qofka Swedish-ka sanadkii waxaa lagu qiyaasaa ilaa $60,000 marka loo eego qiimeyntii u dambeysay ee la sameeyay sanadkii 2023. Tani waa celceliska dakhliga, waxaana ku salaysan tahay wax soo saarka guud ee dalka iyo tirada dadka ku nool Sweden. Celceliska mushaharka qofka ka shaqeeya Sweden waa ku dhowaad $30,000 sanadkii. Mushaharka wanaagsan ayaa ka dhigaya Sweden mid ka mid ah dalalka ugu sarreeya ee xagga nolosha, iyadoo si weyn loo taageero howlaha ganacsi. Sweden waxay caan ku tahay goobaha taariikhiga sida Royal Plaza ee Stockholm, Gamla stan oo ah magaalo qadiimi ah, iyo Skansen oo ah madxaf dhaqameed. Gothenburg oo ah magaalada labaad ee ugu weyn Sweden waxay caan ku tahay dekedaheeda waaweyn, dhaqankeeda hodanka ah iyo jawigeeda ganacsi. Malmö sidoo kale waa magaalo caan ah oo leh goobo dalxiis iyo dhaqamo cajiib ah. Muuqaalada dabiiciga ah sida National Park-nada ayaa sidoo kale ah goobaha muhiimka ah, halkaas oo dad badan ay u socdaalaan si ay u arkaan quruxda dabiiciga ah. Sweden waa dal dimuqraadi dastuuri ah oo leh boqortooyo, laakiin boqorku ma laha awood badan. Baarlamaanka oo loo yaqaan Riksdag wuxuu qaataa go'aanada siyaasadeed ee dalkaas. Xisbiga ugu awoodda badan waa Social Democrats oo si weyn u taageera daryeelka bulshada. Sweden sidoo kale waxay caan ku tahay siyaasadeeda diblomaasiyadeed oo dhexdhexaad ah, iyadoo ka shaqeysa arrimaha caalamiga ah sida nabadda iyo horumarinta. Sweden waxay leedahay nidaam waxbarasho oo wanaagsan, iyadoo waxbarashada aasaasiga ah iyo dugsiyada sare ay lacag la'aan yihiin. Sidoo kale jaamacadaha dalkaasi waa bilaash
oo wax lacaga lagama qaado muwaadiniinta reer Sweden iyo ardayda ka soo jeeda midowga Yurub. nidaamka waxbarashada waxaa ku jira barnaamijyo kala duwan oo lagu taageero ardayda. xarumaha caafimaadka ee Sweden waa kuwa caan ku ah daryeel caafimaad oo tayo leh. xarumahani waa kuwa la heli karo 24 saacba. intaas waxa dheer adeegyada caafimaad waa kuwa lacag la'aan ah ama qiimo jaban lagu heli karo. Sweden waxay leedahay adeeg caafimaad oo ah mid hufan iyadoo la siinayo daaweyn tayo leh dhammaan muwaadiniinta. Sweden waxay ka kooban tahay in ka badan 267 oo jasiiradood. si kastaba ahaatee jasiiradaha badankoodu cidima degana. jasiiradaha ugu waaweyn ee ay dadku degan yihiin waxaa ka mid ah Gotland iyo Åland, kuwaas oo ku yaalla badda Baltic. webiga ugu dheer ee Sweden waxaa la yidhaahdaa Kalfin. webigu wuxuu ku yaallaa qaybta galbeed iyo koonfurta dalka. dhererkiisu wuxuu gaadhaa qiyaastii 720 km. halka ugu sareysa dhulka Sweden waa buurta Kebnekaise oo joogeedu gaarayo 2096 mitir. buurtan waxay ku taallaa waqooyiga Sweden, gaar ahaan gobolka Lapland. Kebnekaise waxay leedahay 2 cidhif. buurtani waxay lahayd qayb uu baraf ku daboolan yahay oo ahayd qaybta ugu sareysa, balse dhawaan waxa dhalaalay barafkii oo hadda waxa ka sareysa qaybtii marka hore hooseysay ee dhagaxa ahayd. qiyaastii 69% dhulka Sweden waxa ku daboolan kaymo. tani waxay ka dhigaysaa Sweden mid ka mid ah dalalka ugu kaymaha badan Yurub, iyadoo kaymaha ay u badan yihiin geedaha coniferous. kaymaha ayaa door muhiim ah ka ciyaara dhaqaalaha dalka iyo sidoo kale ilaalinta deegaanka.